yahay dadaalo durkii garashadaado duuga dhaxalka eego u kacdana haguudo socod warkiisiyo xeelada hadanaystaha haku arag daraan darin han noqon doqontii walaalkii dilaysay hana noqon doqontii walaalkii dilaysay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بوحن سلام يا شعبوينها رئيس سوماليلاند ميل كستي جوغان وحن ليهي هابي 18 مي هابي 18 مي بان ليهي دمان بوحن سلام يا مدحوينها سوماليلاند مدن waxaan salaamayaa madaxweyneyga qaaliga ah ee aad u qiimaha badan leh ee dulqaadka badan leh ee sharafta leh Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay mudane ilaahay wuxuu ku siiyay dulqaad iyo deganaan sida kuwad ninkii hadlayaaba ha iska hadlo Soomaaliland way socotay hawaday gashay wata calankeedii babanayo inta xanuunsanaysan waxaan ilaahay ka baryaa inuu caafimaad siiyo ilaahay waxaan u baryaa bilaha Ramadaan inuu caafimaad siiyo oo way xanuun weyn baa hayay ilaahay ha shaafiyo waan ilaahay baan u weydiinay caafimaad khayr qaba ilaahay inuu siiyo oo ilaahay iimaanka ku soo cesho waa ay meel ay ku socdaan iyo meel ay ka socdaan cid garan mayso waa kuwa qaaqdun haya ilaahay ha shaafiyo oo ilaahay ha ku soo cesho iimaanka waxaan la hadlayaa ciidamada Soomaaliland waxaan leeyahay guuleysta habi 18 May baan leeyahay ciidamada Soomaaliland booliiska ku amniga gabi dhamaanba afarta ciidan qaran waxaan leeyahay habi 18 May shicibka Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay roobkii wiidii curtay ilaahay intii dhimatayna ha u naxariisto inta nool waxaan leeyahay war intaad qaaqda haystaan wadankiina wax ka qabsada waar baraaqota waar biyaha idin dhaafaya qabsada waar iska intaad hadalon wadaan hebel baa wax yiri kalba oday waalan daba cararaysaan wadankiina wax ka qabsada waar shaqaysta waa la fihiina ilaaliya waar waxba idin tarimeeya hadal badan iyo hebel baa wax yiri intaad qaaqda haysaan bari horaad adduunka meel ka gaadh lahaydeen waa la isku soo keen jeediyay waa layna baabay arbacaalayna waxay noo qabtay war ducaysta bisha Ramadaan ilaahay inuu inaga qabto waxaan ina soo dhaxgalay qalad waxyaabo weyn bayna soo dhaxgalay oo balaayayna soo dhaxgashay ilaahay inuu inaga qabto oo ilaahay inaga qabto waxaan cadawgeena soo dhaxgalay ee inoo soo adeegsanaya dadkan xanuunsanaya inoo soo adeegsanaya war inagii baa la isku keen soo feeyay lafa maradu waa la isku jabiyaa baa leeyahay inagii baa la ina soo adeegsaday inagii baa dhexdeena laga foocay sidii likaha ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga qabto cadawga hareeraha inaga maray ee dhuusay inagu qurmiyay ilaahay hay inaga qabto inagii baa iscunay inagii baa cadow isku noqonay inagii baa calankeeni iimaansan la ya barwaaqadii iyo magaranaysa nabadii baa lahayn kar laayahay ilaahow ana nabadgeliyada hayn kar waay ilaahow colaad waad la garanayaa yaban say noqotay way idinka arkaya Syria say noqotay way idinka arkaya Libya say noqotay lagu qalanayo dadka war adduunkii inta leegaa nabad baa adduunka la isku dhaafay war nabadgelyadiina ilaashada waa dhulkiina u soo jeesta war ninkani maxaa wuxuu hayaa imika 18 bilood buu hayaa war wax yar baa u haray iimaanka isku jelisa oo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu iimaanka idigu soo cesho rag iyo dumarba ummadan faydatay ilaahay ha soo hadeeyo calankiina u iimaansada tawxiidkana midaan xaq dhowray war calanka Soomaaliyeed waqooyi baa keenay oo waxa keentay Soomaaliland laakiin calanka la leeyahay Hargeysa la dhex marmaraya annagu calan ma nicbin oo calan marab waxba yeeli mayso laakiin waxaanu diidanahay dhafoortaabadka iyo doqoniimada nin yar oo u dhashay Soomaaliland oo la soo xoreeyay yaa maanta haddaan sidii ku jiri lahayn ma buu jireen meelaha sunaanaabi laha intii la xoreeyay uu ku naaxay uu ku tacliin bartay maanta inuu saxniga wax ku cunay ku xaaro waa nasiib darro ilaahayna ha ololiyo ninka ila Soomaaliland ban wax ku sameynaya
قوة إلهي بان أبرينا وبالرمضان يا ودعي بان قلينا يا إلهي وحن كبريا إنه وحي عدو السومالان كقبته ninkii xun ee caloosha xanuunayso ilaahay inuu ka qabto ilaahay baan u baryeynaa maasha Allah wadankeeni waa barwaaqo wadankeeni waa ka maanta iftiimaya ilaahay cadowga naga qabto nabadgelyada laga xun yahay ilaahay nabadgelyada ha noogu wado oo cadowgayga ha jabiyo lacagtii lagu caawinayay Soomaaliya ee masaakiinta lagu caawinayay waxay u adeegsatay inay rag hunguri u waashay siiso oo tiraado ordo ku burburiyo meel war ilaahay baa la baryaa nabad ilaahay baa la weydiistaa qurux ilaahay baa la weydiistaa marka tiraad aqal kala soo burburinaya yaqraq baytag baytay carabtu aqalkaaga dumi waxaan la hadlayaana nimanka bari degan bariyow intaad qaaqda hayseen marka laga reebo reerka habar jeclo waa gob waa la iska soocay shirka lagama qayb geliyo waxba lama weydiiyo waa ay wadaniyiin baa la leeyahay wax wadani lama rabo habar caytanta iyo oday caytan baa la rabaa ayaa la doonayaa dadka nabadda jecel waxa la yahay nabadiina jeclaada idinkana ka guuleysanaya cadowga dhan hareeraha la qabto waxaan la hadlayaa laba nin oo ku soo saaqiday adduunka oo midna yahay inaabtigay oo dhashay Xaliimo eedaday Xaliima dhashay Axmed Ismaaciil Samatar eedaday Xaliima dhashay Somaliland maalintii la taagay ilaa maantada imika waxay ka dhismi weyday waa Cali Galayd iyo Axmed Ismaaciil Samatar waa raggii isteekada la daba joogay laakiin waa tii la soo quusiyay ay madaxweynenimo dhigteen ee cidi saw eeg weyday ma tidin wadanka Axmed waaki afkiisa ka sheegay yidi maxaa doonaysaa wadankaaga uu maqan yahay qaaqdaan baa hayaayo labada jeeb buu kula jira gacmaha wali wadanka uu dhashay wali ma uu dhashay barkad wali iskuul ma ka sameeyay war caruur lagu soo koriyay baradho iyo basal iyo cadceeda lagu soo koriyay oo loo soo halgamay oo rag dhig iyo dhacaankooda u daadiyeen oo ina godka hoostiisa ugu jirto ina maanta waalan tahay ina inta maanta disable-ka noqotay dariiqada fadhida ay noqotay iyo Axmed Ismaaciil Samatar iyo adeerkay waan jecelahay laakiin waxaan islahaa uu toobad keenay asal macal asal buu dhuftay dhulbahanta meel lama dego Puntland lama dego xamar lama dego qaaqdaan buu hayaa ama isaga is cunaya dhaxdiisa ama dad buu suran yahay markii hore aad gardarnayd ninka maanta dacwadu uga socoto Mareykanka Turkey iyo ninka Dhakoo la yiraahdo waa laba nin oo walaal ah oo ilmaadeera marka macallinow waxaad fashaysma la yakuun amsalakum waa nimankii Hargeysa burburiyay waa nimankii Burca burburiyay waa nimankii baad soo hoosta soo gashateen oo tiraadeen kaalay wax nala cun waxba wada leenahay waxaan wada leenahay ma jirto Somaliland cidda waa la og yahay cidda u soo halgantay waa la og yahay ninkii nabadgelyo ku fadhi waaya hana dhaafo ha iska tago meeshu wax ku og yahay uu ooyayo isagu ha tago anagu waxba ma ogin waa tii la qaxiyay waa tii caruurteeda la laayay waa tii aad ogeydeen dulcad iyo harta sheekha injirtu ku gashay hablaayga timaha laga xiiray waa tii raggayaga iyo caruurteeda madaaficda la dhacay diyaaradda ka kacday Hargeysa waa tii rushaynaysay Hargeysa adduunka kamay dhicin nimanka maanta ka hadlaya walle leesma oge waa lees baran doonaa Somaliland way dhisnaanaysaa kii afka ku soo taaganaa hal la xiro waxay yiraahdeen xasaanad buu leeyahay xasaanad male dhakool waa ayo qoladan fadhida meesha ka hadlaysa ee baarlamaan la leeyahay uu ka dhamaaday waqtigoodii xasaanadna ma laha midda labaad ciro waxaan u diidin in la footeeyo waxa weeyi qasbu wadaa waa adoo xamar yiraahda waan footeysanayaa kaalayeen ila footeyso waa sidaas oo kale waa nin meel ku xidhan waa nin shaydaan dabada u kala qaaday waa nin weligay ma arag ciro dhex fadhiya calanka Somaliland oo la dabaaldegayo
ninkii hayow sawir ii soo dir ciro u dabaaldegay calanka Somaliland ma jirto lana soo heli maayo ina cali waraabe saas u qaylinaya saas u hadlaya saas hadal fiican ugu hadlaya wadannimo ku hadlaya ya dhibaato doona ha sameeyo haddana xagga qaranka isugu ku adag yahay taasaanan ku taageeraya khudbadii ugu dambeysay uu jeediyayna uu yidhi nabadda dad baa ku daaca qurmay taana waan ku hambalyeynaya waa runtii waa lagu daaca qurmay oo waa lagu xanuunsaday waxay doonayaan hablowga in la qaxiyo oo in dumarkooda qaxiyaan bay doonayaan ya hargeysa iyo berbera iyo burco iyo gabiiley iyo booraba ma qaxayaan cidii qaxi jirtay ee weligood baqaaqda hayn jirtay in baqaaqlayn doonta ilaahayna iimaanka ku jiliso inta qaylinaysana ilaahayna ha caawiyo maanta waxa la doonayo aanu garan maayo muuse diid maahine waa caafimaad diid weeyaan caafimaadka iyo nolosha iyo barwaaqada lagu nool yahay iyo nabadda caruurteena iskuulada ku dhiganayso ayaa la diidan yahay nimankan ninkii ciida dhunkaray ee Axmed Ismaaciil Samatar maanta wuxuu yiri tabliiq baan jeedinayaa caruurta naxli iyo baalaha iyo dadka hareeraha iyo war hareera ma kala nihiin waa kii 8 sanadood abtay ka madaxweyne waa ka wali abtay fadhiyo saylici fadhiyo waa ka baarlamaanka ay haystaan dhulbahante waa ka galbuurs baarlamaanka xigeenka haystaan war maxay idiga maqan waxay idiga maqan cadaab bay idiga maqan cadaabta way heli doontaan ilaahayna meel kale uu idiga siin dadka gubanayo Somaliland way dhisnaan Somaliland waan ku soo tacabnay intaasaan qurbaha uga qaylinaynay intaasaan dalkayga uga qaylinaynay intaasaan caawinaynay intaasay soo dhisnay nin nacasa iyo ila suuq iyo gudaaf oo alan isboorta soo xidhay waxba yeeli maayo maalinta la aqoonsado Somaliland calanka doontaan la dhex socda laakiin intay aqoonsigu maqan yahay ma arki karno dinac buluugan ku xanaaqna iska daa calan la marmar meelahaas la mari maayo kala soo marana waa suusayde guba eegina cid alla cid wax dowladda ma jirto dhiigiisu waa idin xalaal waa ayo calankii dilaayay madfaca la idin la dhacay dartood ee la idin qaxiyay ee rageena aan ku weynay aawi rageeni talaay dhiigoogu waa idin xalaal sadqeeya ninkii calanka Soomaaliya soo qaata jihaad bay idigu waajiba la jihaadtama wuxuu doonayaa waraabiya qabiya ku eegina ciduu yahay ku eegina waa la soo dhaxgalo shaydaan baa soo dhaxgalay waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliya waliba Hargeysa jooga Hargeysa isaaq kalidii kuma noola cid kasta ku nool wax walba Hargeysa waa caasimadii dalka Somaliland wixii qor in la soo galanay iska celiya iska la jahaatama iska dila iska celiya odayaasha baarlamaanka waxaan leeyahay waqtigiina waa daafteen xasaanadna ma lihidin kii hadlaba hal la xiro xasaanadna ma leh xasaanadiisa aqal baa loogu dhacay aqal baa loogu dhici oo waa la garaaci wuxuu ku hadlay Soomaaliya waa maalin madow maahay waa maalin nuur waa iftiin waa ilays waa dad waxa caruur dhashay nabaday ku dhasheen iyo calanka Soomaaliland hoostiisa ilaahay baa ilaashada tawxiidka dushooda babanaya ilaahay baa ilaalinaya tawxiidku idin qabay salliga nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay aafa idigu rid oo xanuuna aan umada ku dhicin igu dhace waxa doonaya in Soomaaliland burburiyaan intaasaanu hadlaynaa oonan caytamayn oonan cidna aflagaado u geysanaynin oo aflagaado iyo cay iyo waxbana lagu leeyahay oo iska daawanaynaa oo sharaftayada iyo qiimahayaga iyo dalkayaga iyo dadkayaga aanu ugu xishoorayna iyo dhaqankayaga dadkan bilaa dhaqanka ah ee afka ka waashayna waxaan leeyahay ilaahay haydin garasiiyo waxa wanaagsan iimaankana ilaahay idin soo celiyo u duceeya sidaad roobdoonta ugu baxaysaan reer Somaliland inta caafimaad qabtay u baxa roobdoon dadka ilaahay inuu soo hadeeyo oo musheekada waxaan ka codsanayaa in miskiidada uga duceeyaan aafa ku dhacday oo dabeel shaydaan baa martay oo waa la arbacuunaye u duceeya waxaan leeyahay dhammaan reer Somaliland happy 18 May ciid mubaarak Ramadan Kareem
إلهينا وحن كبريا إنه إذن إلاليه وإذن دوره يا وادول نبضات ولا جذب قلي ولا نفس قلي وكان دعوة دودي ولي يا أمريكا كسعتها وطا ما أنت كيش لي كوج بيهر قبلي كيش لي إن كير كتوك دي شنت بس كل فتاة الحبضات وكان ما أنت دعوة السعته ديقنا مهره ديق بانا رقبة دقر بانا لو جيستي ويلبا وانا لقول يا كوا نقول يا أنا عيب بيك قايد دوران كعنتنا هلا يسقبصدو قول سومالي لان قول همبليا لي هب 18 مي ننكي نحياها النحو هب 18 مي ونور وقلبك يجي كتالا 18 مي قلبك يجي يا لا علنك التوحيد كلي لابتو نجا قرية علنك التوحيد كلي إلهينا هقوليو انت نعبنا هاد عضو عيدها هوس مرتو إلهي ننكي سومالي لان نعب عيدها هوس كليو ما شاء الله وشرف وقيمه وعلنك اللي قدقي وعلنك التوحيد كله ما شاء الله وحنان إلهي كبر إياه إنه هو ذا كببضه وأدونكو أقوى صدو أنقص نجا مقام بجرت أنا جالس أقوى صنعي أنت نجا حنوستينا إلهي هالشافيو وأنا السلام يا مدحوينه يجا شرفت عليه وأنا أدبن وسلام يا وأنا عريسنا هاي هذا القضية يجبود بودنا فعلي يجا هذا وأي أدبن عريسنا هاي هذا الله ذا كسر اليوتيوب يده dadka caruurahoogii banaanada geystay ee caruurahoogii banaanada ku haysta ee doonaya caruurta iskuulada dhiganaysa jaamacadaha dhiganaysa sharafta leh qiimaha leh inay qaxiyaan oo ay rabash ka dhaxridaan jecel raggaasi ilaahay baa inaga qaban ilaahay baanan koos galay cadow weeye markii hore waxaanu lahayn waa rag kursi uma ooyayaane basbaas kala ku daadsan ilaahay ka damiyo madaxweynahayna waxaan leeyahay madaxweyne sharaf laa tahay waxa lagu dilayaana jeebkaad xidheed dadka masaakiinta wax ku qabanaya lacagtii la leefleefaya la doonaya gidarra laga cunayay madaxtooyadii la gelayay shaa lagu dhaxabaya la doonaya intii baad ka xidhay ya oo shantii boqol iyo kunkii bay doonayaan baarlamaanka marka moojinka loo geeyo lacagay habeenkii la soo siin jiray de lacagay baan soo xambaarino saasa loo soo jeestay ee hadda tira Soomaaliland gabiga badow ka dhiga oo habeenkii lacag soo xambaariso de way meel marin lahaayeen laakiin waa dad walfay waa odayaal meesha ku walfay waa nacasyo kale Soomaaliland waa maalin madow intaas uu fadhiyay baarlamaanka oo xoolihii agoonta cunayay oo xoolihii basashi bardada dumarka dariiq la fadhiyeen uu cunayay maxaa maanta maalin madow ka dhigay way nacas ilaahay aduu qalbi madow ku yeelay xasaanadna male xira maxkamad mariya xukumana insha Allah na waxaan idin rajeynayaa ciid mubaarak baan leeyahay happy 18 May baan leeyahay sharaf iyo qiimo calankiina ha sareeyo guul Soomaaliland guul cadowgeeduna ha dhaco dibo socod warkiisiyo xeeladaha danaystaha ha ku aragtaraan darin han noqon doqontii walaalkeed dilaysay hana noqon doqontii walaalkeed dilaysay isirnimo da'weyniyo ehelnimada duuga ah ka aheed miinkee hadba kii dadka wixiga dabka loogu soo raro isirnimo da'weyniyo ehelnimada duuga ah ka aheed miinkee hadba kii dadka wixiga dabka loogu soo raro abubtaydu waxay tahay dad ilaah isbadayo waxaan nahay uliyadiir taladeedan doorka ah deganida ammaankiyo dadka wada jirkoodiyo ku dhisdaacadnimo qaran ku dhisdaacadnimo qaran